inta wadayaal aad bad maasantihiin idilkiinba meel walba aad naga daawanaysaan halkan waa Home Cable TV maanta waxaan soo booqanay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota gaar ahaan guriga uu degan yahay Dalmar yare Dalmar horta aad bad maasan tahay in aan marti kugu ahay gurigaaga xilli lagu jiro sabti ahad oo maalmihi fasaxaaga ah oo halkan adiga iyo akhyaar badan aad ballaarsateen baashaal badan balse waxaan jecelahay xaalada jira oo maalmahan dambe soo baxay daraadood in aan su'aalo yar oo dhowr aan kaaga waraysto su'aasha ugu horeysan dad badan ku weydiinaya waxa weeyaan waxaad soo saartay hees inta badan dadku ay ugu tala galeen ama ay u micnaysteenba inay jawaab u tahay hees ka horeysay oo maalmo yaroon ka hor soo baxday oo kooxdii waayaha cusub ee kamid ahayd ay ku luuqeynayeen heestaas oo loo fasirtay inay ahayd mid siyaasadaysan ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa horta adigu haatan kamid miyaa tahay kooxdii aan kugu naqaanay fankaaga aad ka bilowday waayaha cusub ugu horreyn horta walaalka Irshaad soo dhawow guriga ku soo dhaw aad baan idinku soo dhaweynaya adiga teamkaagaba anigana waan ku dhawaa Home Cable haddaan su'aashaada jawaabteeda u galo horta dadku waxyaabaha isla dhexmarayaan horta waxa ka horeysa marunba mise waa been inaan u jawaabay kooxda waayaha cusub ama heesteeda hees ku horeysa inaan u jawaabay arrintaas waxba kama jiraan anigu uma jawaabin kooxda waayaha cusub iyo heestii ay soo saareen laakiin waxaan soo saaray heesaan anigu kaga hadlaya dareenkayga iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxa isku soo aadaa laga yaabaa waqtiyada ay labada hees soo baxeen laakiin heesteedu hees wax jawaaba ma ahan haddii kale haddaan usoo galo arrinta oo inaan ka baxay waayaha cusub iyo in kale waayaha cusub waa koox aan wada shaqaynaynay in ka badan 15 sano waqti badan oo aad u wanaagsan aan soo qaadanay wanaag badan iyo walaaltinimo badan dhex martay bulshada Soomaaliyeed waqti waliba aad iyo aad xaaladooda u adag tahay aanu la qaybsanay dhibaatooyinkii jiray maxaan ku leedahay ka bixitaanka waayaha cusub ma ahan easy aan dhihi karo waan ka baxay waayaha cusub laakiin xaaladan lagu jiro iyo mowqifka ay qaateen qayb ka mid ah waayaha cusub oo ay maxaan ku inay ku dhaleecayaan ama ay ku aflagaadoodaan dawladda Soomaaliya anu mowqifka lama qabin markaan u arkay bulshada Soomaaliyeed sida reactionka ay ka bixiyeen iyo iyaga go'aanka ay qaateen iyagoon qofna kala tashanin waxaan go'aansaday anigu inaan banaanka ka joogo kaligeena ma ahan inta badan kooxda waayaha cusub waa arrin aanu ka simanahay weeyaan on isku wada raacno okay waayahay dabcan waxaad kamid ahayd shakhsiyaad fara badan oo ka bixiyay falanqeeyay heestaasi oo waxaan arkaynaa in bartaad ku leedahay baraha bulshada aad ku soo qortay in heestaasi aanad ku faraxsanayn isla markaana aan mid qurux badan kula muuqan intaan ka warqabnaa haatan waxaad sheegtay Dalmaro in heestii aad soo qaaday aanay jawaab u ahayn haddana haddii loo fiirsado inta badan waxay tagaysaa in ay ku socoto barnaamijkaasi ama heesta ay soo saareen kooxda waaye markaan intaas oo dhan isku soo duubnaan ka imaado su'aashan qaba waxay tahay adiga ahaan heesta ay soo qaadeen maadaama ay fanaaniintu inta badan ay xataa berigii dawladii hore Soomaaliya Saada Cali Allah yarxama ilaa naxariistay kamid ahay dadkii daliili jiray ama waxyaaba dawladda daliili jiray adiga markaa heesta ay qaadeen dareen ahaan say kula muuqataa adigoo bulshada la wadaagaya aniga dareen ahaan waxay la muuqataa fanka Soomaaliyeed waxa la mari jiray si maldahan ayaa la isu dhalaacin jiray dawladda looga hadli jiray iyadoo waliba la fiirinayo la tixraacayo dareenka shacabku haddii ay dawladda boqolkiiba 80 ka soo horjeedaan dawladuna ay dhaliilo badan ay sameynayso waa xaq inaad ka hadasho adigoo waliba still tixraacaya fanka Soomaaliyeed wadadii loo mari jiray adigoo maraya laakiin ma qabo wadankii oo maanta hadeertaan ummadda Soomaaliyeed waxa ka farabadatay qarax baa inta ka dhacay qof baa dhintay hebel baa la dilay meel baa la qarxiyay qabiil hebel weerar ku qaaday dadkii iyagoo intaas oo dhibaato maanta ku dhex jira haddii haddana loogu sii daro intii yarada rajada ahayd u soo muuqatay in maxaan ku raadayay nin fanaan ah oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo maamuus ku leh oo la jecel yahay inta u soo labisto in uu aflagaada cad oo bareero anigu fikrad ahaan way ila foolxuntahay waxaan u danaynayaa ma ahan dawladda Soomaaliyeed waa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadankii oo aan haysanin hub kaleeto hubka kaliya ee haystaan rajada kaliya ee haystaan ay tahay qofka madaxda ah wuxuu u bedeli karay wuxuu bedelo haddii wixii la bedelay oo dhan xaarinta laga dhigo la iftiimiyo loo hanqal taago doorashada bari dhici doonto oo waqti uu ka dhiman yahay
أنا وحنا أركا خلط بانو أركا وحنا وناجو أركا إن بلشة لا تصو وح وناجة إياه دليشو أيسن ماشة كمرنين way أنت أصلاً okay way markii laga yimaado qoraalka aad soo qortay aanu aragnay ma jiraan wax xiriira oo aad la yeelatay ama aad la samaysay oo arintan ku saabsan haday tahay inaad kala hadashid ama aad su'aal ka weydiisid xiriir ma la samaysay gudoomiyaha kooxda kale oo Shiine walaalkay Shiine horta walaalkay waaye waan inaan aad isugu dharnahay waqti badan soo wada marnay dib iyo dhaaf baan soo wada qaybsanay ma aanan wada hadlinay isagu si shakhsi ah laakiin kooxda shalatoole ilaa daraad ilaa iyo weegii hore intaysan heesu soo bixinba shirar وأن وضيالني بأجرت كوحدة ولو استقل إيش شيء إن أنت لا invite جري وجو أنصدين وسن إيمانين ولو لا إيش شيء إن كوحدة قيب كم ذا يولي بدت بدن أو شعب كصوماليات كم ذا أنت الله هذلين إن يقول نصيحة يعني كنا قوير هذا أنا ورتمر كورتكم هو براروكسرين وحنا نسينا سمين كرو أما سمين دونه because وحوها قف راعي شرعية ويا عصب most of the time محن كورة ذا مرك أنا أركي أنا شخصيا هان لما هذل لكن كوحدة شربانو يالني وحانو قانسني مادام ودقنينتي كوحدة وقادم واي إن أنا magaci Soomaali magaci fanka oo waafinaynta waayaha cusub oo dagaalka aad aragtaan u soo marnay hadii halkaas uu maray maanta bulshadii Soomaaliyeed inay boqolaal kun oo qof ay maxaan ku raadayay hadii hatta la yiraahdo dislike waa la gatay commentiga oo 40 kun 50 kun kor u dhaafaya oo bulshadii annaga nacaynayso oo fanaaniintii kooxda ay caynayso oo magaci waayaha cusub ay caynayso oo bulshadu ay ka falcelinayso maxaan ugu jawaabnaa su'aashaas ilaa hadda qof iga jawaab ma jiro معناها هدي اللي يريد dislike ولا قطي والتكنولوجيا ولا سمين كره ومعقول واسكبر ولا سمي لكن هدان كون راعتاس ضد كان كعينية كهذلية ولي بكابرية بليس وابد سمي سنة ما قاعدين وابد أنو شعله وادنا نعسي سنة حتى أم بالهاستا كسارة مش ضد كله محن وجه وابنا أو كنت كوني لحدا كورونا فيه ويه وصح إن مادام كوح waayaha cusub ay tahay oo isaguna uu Shiine uu yahay gudoomiyaha kooxda miyaanay jirin xubno kale iyo kala dambeyn kooxda u yaalo oo miyaan la isqaban karin oo mise kooxda waxa weeyaan isagoon baa haatan ay ku hadho ay gacantiisa ku jirtaa miya wallahi kooxda muddo horta way kala baahsaneed anigu halkan waxaan joogaa muddo ilaa 16 sano ah wada shaqeyn ugu horeysay oo physical aan wada yeelano 2 sano ka hor baa isu keenday halkan igu yimideen channel su'aalena waqti fiican wada qaadano si fiican halkan ugu soo dhaweeyay si fiican aan babixiyay kala baasanaantaas la ajligeed sharci weeladaha kooxdu la maro laakiin sharciga la marayay waxa u muuqata in aysan qofna hadda uusan u hoggaansameyn qof walba uu rabo inuu independent noqdo oo maxaan ku raadayay uu tiisa wato which aan isdhiraa way fududahay oo macnaheedu hadii qofka bini'aadamka wixii wadadii sharatool anagoo gaajaysan aanu isla soo marnay maanta markii qurba la yimid hadii la wada mari waayo waxa fiican in tartiib nin walba tiisa u wato waayahay haddaan soo noqono dhankii heestii soo saartay saad ka dhawaajisay heestaasi jawaab uma ahayn baatiri heestii ay soo saareen kooxdu bal ina sharaxaad naga siisayaan jeclaana heestaasi waxay tahay waxaad ugu tala gashay iyo sidoo kaleba cidii ku samaysay heestu waxay ka hadlaysaa sida ay ku bilaabanayso mar raba inaan midhaha hal u kor istaago waad dhageysan kartaa dadku way dhageysan karaan wayna dhageysan runtii aad bay si wanaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh ayay uga falceliyeen heestu totally waxay ka hadlaysaa rajada maanta uu qaranka Soomaaliya uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed shakhsiyan ay leeyihiin dawladda Soomaaliya waxyaabaha ay qabatay videoga ayaa lagu soo daray laakiin anagu shakhsiyan waxaanu leenahay raja soo iftiintay meel fiican buuna wadanka u socdaa maanta kan madaxda noo ah waanaanu aamino waanaanu adeecno waanaanu garab istaagno dhibka Soomaalida haysto waxay tahay madaxweyne marka la doorto 3 bilood ee herato adduunka meel kasta oo tagto xaflad baa ka jirta madaxweynaha lagu taageerayo 6 bilood ka bacdina dadkii xafladda qaban qaabinayba ka soo horjeesanaya dana shakhsiyadeed li ajligeed ma fiiriyaan danta guud qofku chance buu leeyahay 4 sano leeyahay 4tiisu markay dhamaato ayaa lagu la xisaabtamaa wixii uu sameeyay laakiin dareenka bulshada Soomaaliyeed waxa ay qabtaa inay dawladdan wax fiican qabatay wanaag fiican sameysay rajadii soo celisay aniga halkan joogo aan ka dareemay rajadii soo celisay aan ka dareemayo bulshada Soomaaliyeed oo meel walba joogto waxa ay maanta reaction ka bixinayaan wanaag ay
muujinayaan aan ka dareemayo dadka wadankii jooga oo nula xiriirna maalin walba la hadalno wanaaga ay muujinayaan marka rajada Soomaaliyeed yaan been laga sheegin yaan dadkeenan qurbaha jooga ummadaas bariiska carreeyaan uga shubin inaan 10 sano dib u celinin hore ha loo socdo intaasay ka hadlaysaa Heestu waayahay su'aasha kale qabaa waxay tahay bariyahan ma moodaa dambe in fankii iyo siyaasadii ay isdhex galeen marka laga yimaado heestan heeso kale badan baa jira oo soo baxay oo loogu jawaabayo ama wax laga sheegayo hogaamiyaasha iyo madaxda fanka iyo siyaasaddu ma u malaynaysaa adiga dalmar ahaan inay haatan ay yihiin wax isdhex galay fanku horta siyaasad kuma bees garaysan laakiin wuxuu ku bees garaysan yahay dareenka bulshada hadduu kacsan yahay oo arrin siyaasadeed oo khaasatan oo markaa jirta ay dareenka bulshada u hanqal taagayo fanku wuu ka hadli karaa laakiin wuxuu leeyahay marxalad loo maro dariiqo loo maro oo akhlaaq leh oo adaab leh oo wadaniyad leh adigoo nacsiinaynin dadka wadanka ay ku nool yihiin inaad tusto u iftiimiso adigoo maldahaya oo wada adaab leh oo akhlaaq la marayo inaad tusto meeshay wax ka qaldan yihiin haddii waayaha cusub walaalkay saaxiibkay shiine wadada uu mari lahaa I would love to waan ku taageeri lahaa laakiin wada oo aan u arko anigu in ay shakhsi u daneynayso ama shakhsi kale uu ka dambeeyo ama isagu nafsad ahaantiisu uu macnaha uu dan gooni ka wato macnaha waa foolxumo weeyaan laakiin haddaad adigu aad daldalool aragto aad tiraahdo maxaan ku raadaay meel heblaay wixii ka dhacay dawladdu maxay wax uga qaban weyday maxaa wax loo sameyn waayay adigoon shacabkii beenu sheegin shacabkii kicinayn shacabku waa indha ku garaad leh laakiin iyaga ka ugu xadantooda marka wanaagaas in la maro haddii ay jirto fanku siyaasadda waa laga hadli karaa totally waa laga hadli jiray hortana laga hadli jiray waayahay dalmar kooxda waayaha cusub waa koox aad u ballaaran oo in badan soo jirtay saanu ka warqabno haatan haddii saad ka dhawaajiseen aad khilaaf uu meesha soo galay oo aad u aragtaan shiine in uu awoodii kooxda uu ku tagrifalayo miyaanay qorshaha idinku jirin ama miyaanay habboonayn inaad kooxda badbaadisaan isagana aad gaar u xukuntaan maadaama haatan ay arrintu u eg tahayba in kooxdii waayaha cusub iyo shiinaba laysla tuurayo may waa sax way arrinta ka hadlayso waa qorshe noo qorshaysan ma ka bixitaanka aniga hadda aan leeyahay waan ka baxayaa kooxda ama waan ka baxay kooxdu waa waxaanay igu kooban laakiin waan kuu sheegay waana kaaga bilaabay ma aha go'aan aan qaadan karay keligay wuu noo socdaa shirar baan noo socda annagoo aanu darahana uga tashanayno waa la arki doonaa maalmaha soo socda waan ka wada hadli doonaa laakiin wax hadda degdeg oo leeyahay kooxdii waa burburinaynaa because of shakhsi ama shiina madaxiisa loo burburinaya ma jirto weli waayahaad waa mahadsan tahay maxay tahay fariinta ugu dambaysa ee aad fari doonto ama aad u gudbinayso fanaaniinta iyo sidoo kaleba siyaasiyiinta arrintan isku haysta heesta kasakow heesta anu waxba kama oranayo dadku iyagu ha qiimaystaan laakiin dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan hal arrin baan u sheegayaa dawladnimo taageer shakhsi ha taageerin shakhsigu maanta wuu noo imanayaa berri wuu naga tegayaa mid kale noo imanaya laakiin waxa u baahan inaynu ilaashano waa dawladnimada hala taageero wabillahi tawfiiq aad baad mahadsan tahay waan ka mahadcelinaynaa adiga iyo asxaabta kale kula caawineysaba barnaamijkan aad naga aqbasheen tan iyo kulanti dambe haddii Allah uu wada ogolaado waxaan ku dhaafi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh